haween carruur iyo dhalinyaro ayaa maanta magaalada Burco ka dhigay mudahaarad ay kaga soo horjeedaan xukunka ay maxkamadda ciidamadu ku riday 8 eedeysan oo lagu eedeeyay dilka Allah u naxariistay taliyay hore qaybta booliiska gobolka Saax ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Burco dadka mudaharada ayaa iyagu gubay taayiro ciidamada booliiska gobolka Togdheer ayaa muddo kadib markii uu socday mudaharadkaasi kala dareeriyay dadkii mudaharada ayay waxaana ciidamadu xabsiga u taxaabeen qaar ka tirsan dadkii mudaharada ayay shirjirayd oo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatira ku qabtay xafiiskiisa ayaa si cad u tilmaamay inuu mudaharadkaasi ahaa mid ay soo abaabuleen dad dana gaar ah kalihi wuxuuna barasaab ku sheegay in sharciga la tigsan doonaan cid kasta oo ka dambeysay mudaharadkaasi waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan ka horaysan maanta xogaha rabshad yar oo abaabul dhalinyaro la soo abaabuliyay dumar ayaa ka dhacay magaalada abaabulkaas cid baa ka dambeysay cidii ka dambeysay qayb kamid ah gacantaan ku haynaa waan soo qabanay sayidku waa ka warhaysan warbaahinta ama soo duubteenba waxay hayeen dumar iyo dhalinyaro yar oo carruur ah oo la soo abaabulayay wax rabshada ma sameyn laakiin way qaylinayeen taayirna meel bay ku gubeen laakiin qof weyn oo mudakar oo qabanno kuma jirin laakiin markan ruudkii raacnay ama waxaan ogaanay in ay ka dambeeyeen dad waaweyn oo deegaanka ah haday tahay cuqaal iyo haday tahay niman kale oo ganacsataaba marka qayb kamid ah waan haynaa haday cuqaaltay oo qaar awgeedeen ba TV-ga idinku ka duubteen oo xandidayay dadku hanjabay garan mayno dadkaasi waxay mudaharadkaas ku salaysan laakiin rag u jeedale oo ama xisbi ha nagu soo gabadaan ama u jeedo kale ha ku soo gabadaan wadana gaar ah leh ayaa dadkaas soo kiciyay tan oo kaliya ma aha waa ogeedeen sheekh waa ogeedeen ilaa inta u dhaxaysa barbariyo sheekh waxyaabay ka dhacay la shalay wixii un bay kuwan la xidhiidhan oo ay la mid yihiin laakiin dadka reer Burco way ka doonayeen la shalay la daraad maalmahan laakiin kulli xanuunkii waa soo gaaray naguma badna laakiin waxaan halkan uga sheegaynaa dadweynaha reer Burco nabadgelyadu waa qaali waa saldhigga nolosha waxaynu ku bedelaynaa ma jirto ciidan leh yaanay dadkiina iyo dawladdiina idinka horkeen waan idinku celcelinayaa dadweynahayga shicibka degmada Burco waxaan leenahay cid gaar ah oo ujeedali dadkiina iyo dawladdiina yaanay idinka horkeen nabadgelyadiina yaanay idin xistiin ama aanay idinka gelin khalkhal nabadgelyadu haysanaa Burco si fiican bay u nooshay isku dhaxgal baa jira wanaag baa ka jira nin ujeedo leh oo ujeedo waliba shakhsiyan ama xildoona ama wax kala ujeedo leh gaar ah yaanu danta ummadina yaanu baabin inta sanad kula talinaya cid kasta oo arinta u sibir saar ma yeelina anagu sida gobolada kale cid kasta oo ku dareeno arinta waa qabanayna waa xidhayna waxaan waliba sharcigan horgeynina ciidan ku toonno imaka kuyan ku toonana waanu haynaa cid kale baaris bay noo socota waanu qaban doonaa dadweynahayga waan la hadalay in badan baanu kala hadalay saaka dariiqyada maamulka gobol ahaan waanu dejinay si fiican baanu la hadalay wayna maqleen intoodii badnay waxa arkaysa qofka in la soo hagay oo waxaanu marka dadka qaar waxa ma ogeynba markii aan la hadalay dadkii waan dejinay rag iyo dumar waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga Hal-Deeq News